xanuunkan wuxuu ugu soo bilowday muddo haddaan laga joogo 6 sano. Xanuunka wuxuu ugu qabto ugu bilaabay marko wuxuu iga bilaabay kaadida inay ugu ceshoonto. Wuxuu ku xijiyay inay kaliya fadhiistaan. xanuun ay qabtay xanuunka marka anay kaliya iyo waxaas ma maleeyeen waxa laga qabtay marka xanuun zaid aan dareemo oo korka iyo kaadida iyo yaraatay iyo wax badan aan isku arkay way fahansaneen waa baxay isbitaalaan tagay birbir ali qawaasa waa wariirasa ogaalkii iga tagi jiray saacad xanuunsahay wala waa wariira wala buuhay waa mataga kaadida way dhibaysa anigoo neefti naqaska ugu ceshan yahay neefso karin waxa lagu qaaday ambulance sidaas isbitaal Dar es Salaam lagu geeyay marka meeshaas baarista lagu sameeyay baaristi oo la sameeyay waxa ay soo baxday inaan qalitaan ah qalitaanka waa la qalay hadii la qalay oo qaliinka lagu sameeyay qaliinka waa lagu guuleystay أنا بابور في الجسد اللي جاي الحمد لله شكري والله يبارك كليا لا بارك وعلى كليا وفلسطين والو دغا تقاتنا لك دكتورات اللي كان كثر باري هو هاي كليو اللي على كتب هذه لا بلس دافع العمل يدغن اسبوع هل مرة لا يدغ جراديه دول لقيتانا مرق لقيتانك adiga markuu ugu dambeysay waa lagu dhibtooda lacagta xoogay maadaama aniga aan shaqaysano lacag aan haysan اسبوع مرة لا يدغ جر qarash kale halkii mar kun $1 taawiina abti u ahayo oo markaas ila jiraya ii soo gudbiyay marka cabashadii wuxuu soo gudbiyay Hormuud Foundation oo uu soo gudbiyay kaliya la dhaqay ilaa muddo dhaqataan lagu waday oo kay markaa naqdo xaliina oo kay tahay dhaqataan waa ku dhamaaday Hormuud Foundation la soco hadaad wax tareento noo imaad dadka kaliyaha Filistiin loo sameeyo ay kaliya dhaqista waxa ay hadda tiradooda ay gaarayaan 170 iyo xogaa dadkaasi waxa ay ku bilowdeen markii hore tiro aad u yar oo ah ilaa iyo 10 qofood dhammaan kharashka ku baxa dadkaas kaliya loo dhaqo anaga ayaa bixina Hormuud waxa ay qaban jirtay qarashka dhaqitaanka iyo baarista waxaas qarashka nayada ma ka bixi kareen qarashkaas iga dhiibi jirta qofka kaliya dhaqista kharashka ku baxaya kaliya maana kharash kale ayaa ku baxa wuxuu u baahan yahay cirbad oo dhiiga mataqaana furfurta ama dhiiga kaagacaysa cirbadaas kaliya macnaha lacag joogta marka qaarkood dadka xaalad ay galaan in isbitaalka saxdaan u baahdaan oo qaar waxay galaan qaarkood xaalad oo miir dabool ah oo isbitaalka inay maalmo jiiftaan oo ay isbitaalka mataqaana daawo ay helaan dhammaan kharashaadkaas dhan mataqaana anaga ayaa bixina aad xanuunsan anoo waqtiga kooma ku jira maan kasta xanuunsaya joogi jir hada alxamdulillah boqolkiiba waa fiican wax dhiba ma qabo hadda waa fiican boqolkiiba boqol in soo karo socodkan ka way dhibay wax badana xanuunkan la soo daala dhacay hadda waa roona alxamdulillah meel dhiblaan ka imid meel qatar oo ruuxiga qatar galan ka imid hatta alxamdulillah birigna sheekayayo maan ka baxayo baabuur raacayo xafiistiisana waxaan ku faraxsanahay in 6 kamid ah dadkaas ay ka bogsadeen xanuunkii oo aysan dhaqid dambe oo joogto u baahnayn aad iyo aad ayaan u faraxsanahay waan ilaahay maadiis inta hadda kaliya loo dhaqaayo la ilaahay caafimaad oo siiyo